adduunyadu waa yoombayoon waana harka labadiisa gelin waa maalinaad caafimaad qabto iyo maalinaad xanuunsanayso waa maalinaad faraxsan tahay iyo maalinaad murugaysan tahay maalinaad xuskaagu uu joogo iyo maalinaad waalatay waa maalin adduunka aad timi oo lagugu soo dhowaynayo oo aad dhalatay iyo maalinaad geeriyootay oo adduunka aad ka haajirayso oo qabri laguu sii wado intaasoo maalmood ayaa adduunku ka kooban yahay kii aad la kulantaba waa inaad imtixaankiisa u adkaysataa una dhabar adeegtaa mid kalena aan kaa dabageeye haddii adduunyada iyo mulkiga iyo maalka ilaahay gacanta kuu geliyey qofka baahidu ifka uga soo baxday ee wakhtigu ku niikiya ha la yaabin waa imtixaan kugu socdee adiguna maalkii adduunka isumaad doonine haddii dhowaan aad ka daawata tiifiga caalamiga ah yunifersal aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla oo duruufo adduunya ay ku gadaayan yihiin oo deggan duleedka magaalada kismaayo indhala'aan baahi gaajo hoyla'aan xanuun iyo wixii la mida ay la soo darseen oo bulsho fara badanoo soomaaliyeed ay aad uga naxeen carruurtooduna ay ka yacday haddaba maanta dhowr bilood ka bacdi xaaladdoodu waa sidee maxay iminka ku sugan yihiin miyay faa'iideen muuqaalka la baahiyey kadib mise way khasaareen aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla waxay gaadhay isbeddel dhinac walba taabanaya markii ugu horraysayna dhakhtar ayaa la geeyey indhihiisii ayaana loo fiiqay ilaahay ayaa wax hagaajin karee in isbeddelka aabba hilowle iyo xaaskiisana waxaanad ka shiidaal qaadataa sawirkii ugu dambeeyey waa sawirka halkaa kaaga muuqanayee ee isla maanta laga soo qaaday waa aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla oo hor fadhiya aqalkii la dejiyey amaba la siiyeyba magaalada kismaayo iyagoo ku hor isticmaalaya moobillada ugu wanaagsana ee internetka iyo dhinac walba loo isticmaalo haddii dhowaan aad arkayseen aabba hilowle inaannu indhahaba wax ka arkayn oo dadka tagawaadhida iyo dhagxaantu ay isugu mid ahaayeen midkoodna aannu arkayn haddaba maanta sidaad aragtaan wuxuu isticmaalayaa aabba hilowle taleefannada ugu qaalisan isagoo aqalkiisa hor fadhiya xaaskiisuna ay cadceedsanayso jawi degganna ay ku jiraan haddaba waxay tahay su'aashu maxaa isbeddelka noocana yaa sabab u ah ilaahay ka sokow marka laga tago yaa sababay yaasana guulahan gaadhsiiyey aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla kaalintii carruurtoodu ay ka baxeen ee ay ku banneeyeen duruuftana ay kaga carareen waxa uu buuxiyey bulshada soomaaliyeed ee ku kala nool cidhif ka cidhif qaaradda yurub qaaradda ameerika qurba meeshay u ahaataba iyagoo malaayiin lacaga intay soo ururiyeen ku soo hurgufay lamaanahan soo xambilay noloshooda isuna soo samray balse duruufuhu ay badweynta hindiya ku dareen indhaha ayaa loo fiiqay maryihii ayaa laga beddelay waxay cunayaan waxay cabbaan ayaa la siiyey aqal ayaana la dejiyey moobillada ugu qaalisanna waa la siiyey shaqaale ayaa loo qabtay inta ayaa laga helaa haddii aad tahay qof soomaaliya waa inaad ilaahay ugu mahadnaqdaa waayo bulshada kale caalamka ku dhaqan iska daa dad aan waxba isu ahayn oo magaca qowmiyadeed wadaaga inay wax isa siiyaan labada qof ee isdhalay waa dunida reer galbeedkee waxba isma taraan qofku markuu waayeel noqdana waxaa lagu turaa goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo oo dawladda ayaa shaqaale u qabataa xafaayad iyo saxarada ka maydha halka ilmihiisina uu magaalada dhinac kaga raaxaysanayo oo gawaadhida ugu qaalisan uu wato iska daa bulsho kaloo wax istartee soomaaliduna qofka jilicsan ee dhexdooda ku nool marka dhibaata la soo daraysto weliba sannadahan ugu dambeeyey waa loo tafaxaydanayaa waxaana la isku dayayaa qofkaas
in wax la taro oo noloshiisa guulo waaweyn la gaarsiiyo inkastoo aabbe hilowle iyo xaaskiisa ceebla ay nolol adag ku soo noolaayeen oo weliba adhirraac ay noqdeen carruurtooda ay ka yaaceen baahi dartood oo weliba ay u samafali waayeen maanta waxay ku nool yihiin nolol barwaaqa soorana nolol aad u wanaagsan weliba dabaqadda dhexaa iyagoo leh alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin weliba aanina xasuusiye aabbe hilowle waa ninkii lahaa haddii aan haysan lahaa waxaan cunayo waxaan cabbo masaajidka kamaan baxeen waan iska dhex fadhiyi lahaa meel la joogana adduunka waxaan ugu jeclay masaajidka haddaba bulsho fara badanoo soomaaliyeed waxay isweyddiinayaan labadan waalid ee waayeelkaa carruurtii ay dhaleen ee daruufta uga cararay iyo noloshii adkayd ay ku noolaayeen maanta markay ogaadaan in hooyadood iyo aabbahood bulshada soomaaliyeed ay u kaceenoo guri u dhiseen lacagtii adduunkana la duldhigay ma laga yaabaa nacasnimadooda inay ku soo noqdaan oo is yidhaahdaan oo weliba iyagu noloshaas ay naf soo moodaan iyagoo lacag darteed u soo noqonaya sheekadan waxa ay isku mid yihiin sheeko ka dhacda waddanka hindiya waa maamadii dawarsan jirtay ee hees balse codkeed maad u macaanaa duruufaana ku noolayd ee weliba ka heesi jirtay goobaha tarreennada iyo dadku ka socdaalayaan ee maalin maalmaha ka mid ah muddadii weliba nolosha ay kaday ku noolayd inanteedii adduunka ugu jeclaaday ka carartay baahi darteed uga carartay ka dibna maalin maalmaha mid ka mid ah nin dhallinyaro ah uu muuqaal codkeedii ku duubay oo baraha bulshada dhigay iyadoo shirkadda hollywoodku ay soo dalbatay gabadhii maantana ay malyaneer noqotay inanteedii ka carartana ay dib ugu soo noqotay markay aragtay hooyadeed oo tiifiyada laga waraysanayo markiiba waxaan suuraystay aabbe hiloole iyo xaaskiisa ceebla noloshan wanaagsan ay ku jiraan iyo badhaadhahan ay ku nool yihiin carruurtoodii ka carartay markay arkaan talow markay ku soo noqdaan xaalkoodu sidee ayuu noqonayaa kolley waa waalid waa hooyo iyo aabbo waana beer ilmahoodu markuu yimaaddo xumayn maayeena way soo dhowaynayaan laakiinse waa xaalad adag ayay marayaan sidoo kalena arrinta kale la yaabka badan ee weliba aadka u xiisaa badan le waxay tahay gabadhii yaradee dhowaan lagu baahiyey baraha bulshadu ay ku kulatay magaalada hargeysa ee magaceeda loodhan jiray ayaan maxamed ee shaqaale ahayd ee gabadhii ay u shaqayn jirtay ay dhibaatada u geysatay waxaa ku dhacay isbeddel aad u ballaadhan horta gabadhii kibirka badnayd ee muuqaalka ka dubtay maanta xabsi ayay ku jirtaa inantii shaqaale ahayd ee la dhibaataynayeyna lacagtii adduunka ayaa loo ururiyey iyadoo aabbaheed loogu soo hagaajinayo sidoo kalena waxaa isla maanta shaqo laga siiyey baanka dhexe ee magaalada hargeysa ee somalilan iyagoo shaqaalaha rasmiga ah ee magaalada baanka dhexe ay ka mid noqon doonto oo bushahar wanaagsanna ay qaadan doonto shaqadaana waxaa u dheer lacagayo fara badan oo qurbajoog fara badan ay u soo ururiyeen inantan yar adduunyadu waa meerto inay meerto tahayna waxaad ku garanaysaa gabadhii inanta dhibaataynaysa ee u shaqaynaysay jeel ayay dhex jiiftaa inantii yaraydna barwaaqa sooran ayay gashay waa iga su'aalee ninka magaca soomaali waa qoomiyadda soomaaliye soomaali siyaasadunbay ku kala tagtay laakiinse magicii soomaalinimo laguma kala tegin hadduu qof xanuunsadana waa loo kacaa haddii dhibaata u dareemana waa laga gilgishaa soo waxaad iyo aad loogu farxa maaha isku soo wada duuduuboo haddii aad dhibaato dareento dhibaatada ha ka cabanina waa inaad ku samirtaa haddii maal adduunyo iyo dunida teeda u adag lagu siiyana qofka jilicsan waa inaad hoos u eegtaa waayo adduunku way taxaan bulsho fara badanna oo kaa hoosaysa dabaqadda kaa hoosaysana waa inaad eegtaa ta kaa sarraysa weligaa ha ku tashanin gebagabadii war sidaad aragtidaada u aragto aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla iyo weliba inantaa yara shaqaale ahayd iyaduna horumarka gaadhay bal komentigaaga igu dhaaf muuqaalkanna layg saar siina sheergaree bulshada soomaaliyeed la wadaag komentigana ha hela dhaafin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi